markana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista iyo Haaruun Macruuf. magaalada Muqdisho waxay toddobaadyadii ugu dambeeyay aragtay waxoogaa hoos u dhac oo ku yimid tirada kiisaska cudurka coronavirus. hase yeeshee dhakhaatiirtu waxay sheegeen inay filanayaan inay tiradu mar kale kor u kacdo. sababtoo ah waxaa maalinba maalinta ka dambaysa sii yaraanaya saameyntii bandooyada la soo rogay. sidaasi oo kale waxa ay dadku haatan u arkaan in cudurka COVID-19 uu ka mid yahay nolol maalmeedkooda caadiga ah, iyaga oo sii wata shaqooyinkoodii, si weyna la isugu yimaado suuqyada, wadooyinka iyo masaajidada. haddaba intee in leeg ayay kiisaskani haatan hoos u dhaceen? maxaase ugu wacan? dalka intiisa kale ma kala mid yahay hoos u dhaca magaalada Muqdisho? waa mawduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan. Dr. Cabdullaahi Saciid Xaashi waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta cisbitaalka Martini. gaar ahaan Dr. Cabdullaahi waxa uu ka shaqeeyaa qaybta ICU-da ee la geeyo dadka xaaladahooda caafimaad ay culus yihiin. hadda hoos u dhaca jiro waa yaraadeen kiisaska. marka hadda markii loo fiiriyo bishii soo dhaafay iyo hadda bishan bilowga ayaan farqi weyn u dhaxeeyo. bukaanada imaan jiray awal 10-20 waxbay ahaayeen, laakiin hadda maalintii inay imaadaan hadda maraysa arrintu. hoos u dhaca kiisaska cudurka COVID-19 waxay sidoo kale ka muuqataa tiro koobta ay ilaa haatan bixisay dowladda Soomaaliya. tusaale ahaan 10kii maalmood ee ugu horeysay bisha May ee aynu soo dhaafnay, guud ahaan waxaa dalka laga diiwaan geliyay 569 kiis. marka la barbar dhigo 10kii maalmood ee ugu horeysay bishan June ee aynu haatan ku jirno, waxaa la diiwaan geliyay 537 kiis, taasi oo ka dhigan hoos u dhac 61 kiis. magaalada Muqdisho oo kale waxaa 10kii maalmood ee ugu horeysay bishii May ee aynu soo dhaafnay la diiwaan geliyay 375 qof, halka 10kii maalmood ee ugu horeysay bishan June ee aynu ku jirno la diiwaan geliyay 188 qof magaalada Muqdisho, taasi oo ka dhigan hoos u dhac ku dhawaad 200 oo kiis. maamul goboleedka Puntland waxaa 10kii maalmood ee ugu horeysay bisha May la diiwaan geliyay 79 qof, halka 10kii maalmood ee ugu horeysay bisha June ay ahayd 29 qof. hase yeeshee mas'uuliyiinta dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedka Puntland waxay labaduba sheegeen inay filanayaan inay kiisasku mar kale kor u kacaan, waxayna qaadeen tallaabooyin lagu xoojinayo ka taxadarka cudurkan. dhakhtar labaad oo isna ka howlgala cisbitaalka Martini ayaa isna sidoo kale arkay hoos u dhacan. Dr. Ibrahim Xuseen Cali waxa uu galka baarista u sheegay in faraq weyn u dhaxeeyo bilihii Maarso iyo Abriil oo kiisaska imanaya cisbitaalka Martini ay ugu badnaayeen, wixii ka dambeeyayna uu hoos u dhac jiray. runtii farqi aad u ballaaran ayaa u dhaxeeya xilliyadaas oo especially anaga Abriil iyo May ayaan mataqaanaa shaqeynayna iyo March dawayaaqadeeda ayaa ugu tiro badneed iyo Abriil bilowgeeda wixii ka dambeeyay dib hoos u dhac ayaa mataqaanaa bilaawaneysay. farqi aad u weyn oo tirada ah ayaa markaa waxa u dhaxayso 80% dadkii noo imaan jiray inay hadda yaraadeen oo isla markaasna test in loo sameeyo u baahnaa jiray ama in la seexo u baahnaa jiray. maxaa ugu wacan hoos u dhacaas? cudurkan saan ognahay waxa waaye mar walba saameyntiisa iyo faafitaankiisa aad bay xowle u tahay. xilliyadaas aan ku sheegayo dadka magaalada qof walba wuxuu ka caawin jiray inuu hergeb haayo oo markaa waxa waaye qandho iyo qufac iyo urka ka taga inuu leeyahay oo bilowgii March ilaa iyo May bilowgeeda. marka taas waxaan qiyaasi karnaa in uu cudurkii almost intii uu gaari karay ama haddii uu faafi karay in uu markaa waxa waaye faafitaankiisa uu gaaray. kadibna ay bilaabatay in gobolada uu calaamadahaas markii hore xilligaas uu magaalada joogay calaamadahaas lagama sheegan jirin, laakiin May bilowgeedii ilaa iyo bishan hadda aan ku jirno 6aad ayaa gobolada cawaad u imaanaya. marka hoos u dhacaas waxa waaye tirada uu soo ridanaya ayaa yaraatay, faafitaankiina marka waxa uu ka sii gudbay magaalada oo goboladii ayaa marka calaamadihii laga soo sheeganaya. taas ayaa keeni karta marka in uu cudurkii magaalada ku sii yaraado. Soomaaliya waxay ilaa haatan cudurkan ka baadhay 6423 qof,
waxaana cudurka laga helay dad dhan 2513 waa kiisaska la xaqiijiyay ilaa Khamiistii aynu soo dhaafnay oo barnaamijkan la duubay taasi oo ka dhigan ku dhawaad 40% dadka la baaray in laga helay cudurka coronavirus weli dawladda Soomaaliya si guud uma baarayso dadka lagu tuhmo xanuunka coronavirus waxayna baaristu ku eg tahay dadka soo gaara isbitaalada ama soo waca xarumaha dawladda maxaa haddaba lagu ogaan karaa in cudurkan laga guuleysanayo muxuu yahay habka sayniseed ee ay dawladdu raacayso Dr. Ibrahim Hussein Ali ayaan hordhigay su'aashaas adduunka hadeer wadan dhahay waa iska cirib tiray oo markaa waxa waaye sidaan kusoo laabana ma jirto balse iyadoo saas ay tahay ayaan waxaan dareemaynaa in ay wadan walba maxaa ku dhahay uu bilaabayo dhaqdhaqaaqi mataqaanaa hawadii dib loo furaayo markaa waxa waaye diyaaradihii dib ay u furmayaan isdhexgalka iyo socodka bulshada tartiib ay u bilaabanayso wadamada qaar ayaa markaa waxa waaye intaan arkay adiga ay wax ogaalsan ciyaaraha qaarkood xataa in dib loo bilaabayo bishan gudahooda waxyaabaha lamidka amanaha waxay ku tusaysaa in wixii ay soo yaraanayaan taas waan gartay tirooyinka hadda Mareykanka Europe haddaad fiirso China macnaha muddada kor buu u kacayay muddana hoos buu u dhacayay maalin ka dambeysana hoos bay u sii dhacayaan tirada uu ku dhacayo iyo dadka u dhimanayaba laakiin Soomaaliya sidaas maaha maalin uu sareeya maalin uu hooseeya maalinta ku xigta uu sareeya maalinta ku xigta uu hooseeya marka modelka Soomaaliya raacayso oo lagu cabirayo waxaan muxuu yahay waa maasan tahay midaas waxa keenaya waxa waaye tirooyinkaas maalin walba tirada la baarayo ee dadka mataqaana ay sheegeen diiwaan gashan ama maalin walba laga baarayo ma ahan tiro isla eg tusaale ahaan yani inta tiro ee qofka yani maxaan ku dhahay markaas sheybaarka timaada laga soo qaado testiga in kamid ah ayaa positive noqonayso hadii maalin kamid ah maalmaha la baaro 500 oo qof maalinta ka dambeysana 300 oo qof la baaro 500 waxa laga yaabaa 300 kamid ah ama 400 iska dhacay markaa positive noqoto balse maalinta ka dambeysana hadii la baaro 300 oo qof waxa laga yaabaa 200 inay positive noqdo waxaan ka hadlaa Soomaaliya oo dhan haddana maalinta ku xigto hadii 500 loo laabto marka taas ayaa keeni karto in fluctuation laga dhex arko tirada markaas la soo gudbinayo ee markaa positive-ka ah marka waxa keenayna waxay tahay tirooyinka markaas baaritaanka la sameeyo ayaan ahayn tiro fixed ah oo maalin walba intaas in la sameeyo ma ahan taas ayaa sabab noo ah sababtoo waxa waaye centerada lagu baarayo waa iska xadidan yihiin dadkii oo dhan macnaha testing in la wada sameeyo ma ogola haddii ay ogol yihiinna meelaha laga sameynayo testiyadaas qof walba access macnaha waxa waaye amaba inuu soo gaaro ama culeys ay ku noqon karto maadaama meelaha laga sameynayo testiyada ay kooban yihiin marka waxyaabahaas ayaa noogu wacan waxyaabaha keeni kara in mar walba tiradaas isbedel laga dareemo marka saas ayaan dhihi karaa marka sababaha keenaysa in oo aanan lagu xisaabtami karin in tiradaas lasoo qoro inaan lagu xisaabtami karin dhakhaatiirta Soomaalida ee la tacaalaya cudurka coronavirus waxay galka baarista u sheegeen in sida ay ku ogaadeen khibradooda muddada ay daaweynayeen dadka uu soo rito cudurkan in dadka halista ugu badan ugu jira ay yihiin kuwa halistiisa qarsada isla markaana guryaha jooga ee aan imanin isbitaalada iyo dadka laga keeno goobaha fog ee miyiga ah Cabdullaahi Kayton waxa uu xanuunkan isku arkay 16 bishii Abriil ka horna waxa uu isku soocay gooni markii uu isku arkay calaamadaha hargabka Cabdullaahi Kayton waxa uu kamid ahaa dadka isku dayay inay isticmaalaan daawooyinka dhaqanka oo aysan gurigooda ka bixin kana warwareegay inay dhakhaatiirta hore ugu tagaan maalmo kadib markii uu tagay mid kamid ah dhakhaatiirta Muqdisho waxa loo sheegay inuu qabo oo fureen hase yeeshee maalinta ka dambaysa xanuunku waa uu ka sii darayay waxaana uu go'aansaday in la geeyo isbitaalka Martini oo ah kan sida khaaska ah u daweeya bukaanka qaba xanuunka COVID-19 markaad Martini tagayso iyo markaad isku aragtay calaamadahan muddo intee leeyahay u dhaxaysay 2 week baa u dhaxaysay Cabdullaahi Kayton kuma uusan faraxsanayn isbitaalka waxaana uu codsaday in laga saaro 48 saacadood gudahoodna waxaa lagu celiyay gurigiisa nasiib wanaag aniga ayaa dadaalay oo soo degdego markii waan ka soo noqday Martini waxaan ku yiri waa raystay gurigeen aadaya markaan 48 hours ku jiray hase yeeshee markii uu guriga ku soo laabtay Cabdullaahi Kayton waa uu bogsan waayay
haddana waxa uu go'aansaday in mar kale dib loogu celiyo cisbitaalka Martini waxaana uu toddobaad kadib ku soo laabtay cisbitaalka Martini markanse waxa uu cisbitaalka jiifay 19 maalmood xaaladaadu sidee ahayd markan labaad ee lagu geeyay xaaladayda markaan dambe Haruuno runtii aad bay u liitay anoo oxygen-ka igu joogo maskaxdaydu joogto xoog leh baa haddana waxaan dareemayaa ciriiri xagga neefta ah in aanan xataa salaadii dukan waayey laysi noqday wax hadli karin qofci abnormal igu yahay madax wareerkii kasii daray xaaladayda markaan kuu sheego geerida iyo nolosha geeridan jeclaa markaas inaan dhinto Dr. Cabdullaahi Saciid Xaashi waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta cisbitaalka Martini kuwaasi oo adeega u fidiya bukaanka uu ka midka yahay Cabdullaahi Kayton Dr. Cabdullaahi Saciid Xaashi waxa uu sheegay in dadka ku soo daaha guryaha ama laga keeno meelaha fog ay xaaladoodu ka culus tahay dadka hore u yimaada cisbitaalka halka arrin loogu yeeq badan oo yaani u baahan bulshada in laga wacyigeliyo waxa kamid ah in xilli hore ay ka soo raadiyaan ama isbitaalka ay imaadaan sababtoo ah yaani hadii qofka uu la tabirgul ugu soo haayo jiradiina ay aad ugu sii xumaato in wax loo qabto aad ay u adkaanaysaa dadka noo yimaadana dabcan qaarkood waxa kamid ah dad oo 20 bergul soo joogo qaar 10 bergul soo joogo u badan yihiin maxaa keenaya marka dadku inay saa u soo daahaan oo xilli xanuunku ku xumaaday ay yimaadaan hal arrin aan isleeyahay يعني dad waxa jiro oo jirada ku dhacday oo si khafiif u dhacay oo dabcan iska roonaaday oo ilaahay caafimaad siiyay dadkan isku wada mid maahan difaac isku wada mid maahan yani qofkaas waxa suurtagal ah inuu u report gareeyo qofkii kale uu yaadanayo aniga isbitaal ma aan tagin gurigan tagay raashinkaas aan ama waxaan sameeyay dad waa fiicnaaday marka qofkii waxa laga inuu isku dayo oo isbitaal uu soo raadin xilli hore markii xaaladiisa ay dabcan aad u xumaatana kadib markaas isbitaalka la keeno oo ah mar oo oo damage weyn uu yimaaday dhinaca kale cudurka coronavirus waxa uu farabaas ku hayaa dadka qaba xanuunada kale ee culus dhakhaatiirta ay ka midka yihiin Ibrahim Xuseen Cali iyo Cabdullaahi Saciid Xaashi iyo kuwa kaleba waxay sheegeen in cudurka ugu badan ee ay qabaan dadka uu ku dhaco coronavirus uu yahay cudurka macaanka kaasi oo adkeeya xaaladooda caafimaad waxa kale markii ugu horeysay dhakhaatiirta Soomaalidu ay sheegeen inay aaminsan yihiin in xanuunka COVID-19 uu Soomaaliya ka soo galay dhinaca qaaradda Yurub dhakhaatiirta Soomaalidu waxay ku baaqayaan in la tayeeyo adeegyada caafimaadka ee wadanka warshadaha oksijiinta dhaliyana la dhigo magaalooyin kala duwan oo wadanka ah isla markaana dalka loo diyaariyo cudurro safmar ah iyo masiibooyin kale oo mar walba dhici kara barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo